maansadani waxay la magac baxday rajo waxayna si u niyada ugu dhisaysaa dhulkayga hooyo taasi oo ka hadlaysa sheegaysana inay imaan doonto maalin ka duwan maanta adduunkuna uu isbedeli doono waxay kaloo sheegaysaa in colaadaha iyo dhibaatooyinka taagan waqtigan ay bedeli doonto deganaansho nabad iyo barwaaqo iyo raynrayn dalkayguna noqon doono mid isagu iskii isku kaafiya isaguna filan dadkii ka tegay oo dhan ay dib ugu soo laaban doonaan waxayna ku bilaabmaysaa maansadu sida tan dhibtu maaha waartiyo dhidibsada aan liicine mar uunbaa dhulkaygow dharag iyo wanaag heli dhaawaca ku gaadhiyo dhallaankaagan dabar go-ay mar uunbuu ka dheefsani barwaaqada ku dhaantay in lugta dhigi dhul raaxa leh mar uunbaad waddani dhaba heli ruux ku dhiirada dhex jooggaaga sii jecel dheef iyo u noqon qood marna malab la dhooqiyo biyo dhuun la mariyo iyo hoy lagu dhex nooliyo noqon dheeman iyo luul mar uunbay dhulkaygow haybaddii dhallaannimo sharaftaadii dhowrnayd soo noqon dhisnaantii dhiig qabiil ku daatiyo dhayal laysku toogto aanu ruuxna dheefayn mar uunbaad ka dhalan rawan dhaqan soo jireenoo dadka kala dhantaaliya isfaquuqan dhidibsaday ummaddiina kala dhigay mar uunbaad ka dhow xidhan mar uunbaynu dheel culan dhamicaana dhayeed sharka aan ka dhiidhiye khayrkana dhexda u xidhan ducaalada ku haysto kaa dhiman cada ruux kuu dhigmaa dhalan kuu dhowro sida sabi dhallaanaan socdaal baran mar uunbaa dhulkaygow kugu dhaata wiboo dhulkaleeto kaa tegin mar uunbay dhulkaygow dhismayaasha guudkiyo dhirtu heesa koo curin mar uunbaa dhulkaygow khayraadka dhaansani dhalintii ku dhaaftee kaa dhooftay soo noqon